السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وإن سلام صاحب يال كسر دوادا السلام عليكم من كولج يو عشرة كسب سنة برشاد اللغة الإنجليزية. آه عشر كوري وحن كهذا واحد هذا demonstrative pronoun. هذا وحن كهذا لنا عشر كان شيئا وحجنا أو reflexive pronoun. مركب demonstrative معناه يوفانتني هرجينيا reflectivنا وهذا ينبرنا إن شاء الله. reflexive pronouns maxaa laga wadaa are used waxaa loo isticmaalaa when the subject markuu faacilka qofku wax sameynayo shay ama shay ama qof ha ama xayawaan ha qof wax sameynayo and the object kan lagu sameynayo of the sentence jumlada dhexdeeda are the same person uu yahay hal qof or things ama shay tusaale ahaan aniga ayaa faacilka ah wixii aan sameynayo aniga ayaa sameynayo markaas ayaa la isticmaalayaa reflexive pronoun in other words dhanka kale the action of the verb فعلك refers back to the doer wuxuu ku noqonayaa faacilkii wuxuu ku noqonayaa faacilkii marka laga hadlayo reflexive pronoun marka waxa kamid ah myself I isticmaalaha hadhow pronounkeeda yourself you singular himself herself himself he waaye herself iyada waaye she itself it وواحد نفل هنا أما حيوان واحد أقل هنا كوضع أما حيوان يلا it ourself ضد بدن هذا كل جرتد yourself ضد بدن themselves ضد بدن singular مركز تاي مفردك سيلو استعمالها reflexive pronoun myself أنا أيام أسكهل I am استعمالها because halkan I ayaan kusoo sheegno Soomaha markii myself aan ka hadlayno waxaan I did it myself aniga naftayda u sameeyay ana sameeyay macna waxay noqonay I waa aniga subject faacilka ah it myself ana ma reflexive pronoun kay marka aniga ayaa ficilka sameeyay action doag iyo ficilka I did it myself ana ayaa sameeyay use for the first person singular maxaa markan myself marka la isticmaalo waxay noqonay first person qofka macnaha maalin hore 10 kooraan soo sarxnay waxa la yiraahdaa first second third person waxa la singular plural first person waxa la qofka hadlaayo second person qofka la hadlaayo third person qofka laga hadlaayo markuu qofka first person hadlaayo wuxuu isticmaalayaa myself okay yourself make sure you take care of yourself كنت حضر الناس كنت حضرت هذه شخصيا أنت نحن قلنا ما يصير yourself محل استعماله use for second person singular مركز لقاه الله second person قف قال الله ليس قف كلمات أو مفرد كل جزء himself he saw himself in the mirror وهو سكار كي مرايد الأحداث use for the third person singular male وأنا third person وقف قال الله waxaan tusaay qof kale inuu muraad iska dhaxarka waana qof nin oo himself waa herself adina markale ma fo she bought herself a new dress waxay soo gadatay dress cusub use for third person singular female herself waxaa la isticmaalaa markii laga hadlayo qof dumar ah oo third person oo laga hadlayo gabar ayaa gabar kale u sheegaysa waxay tiri she bought herself a new dress waxay soo gadatay new dress ay soo gadatay أنا قف كله كهلا okay itself حيوان كلا استعمله the cat lick itself use for third person singular neutral often for animals and object حيالها نفط عن لهين أيها الله استعمله إتيه هو عقل عن لهين okay reflexive plural ما كله كهلا أو self معناها جماعة number 1 ourself we did the cleaning ourself waxaas anaga ayaa macnaha cleaning ka sameeyay inaan nadiifino we did the cleaning ourself macnaha cleaning kan waxaan meesha la nadiifiyay anaga ayaa sameeyay macnaha use for the first person plural waxaan ku samarnay marka hore inaan dhaxnay myself oo first person singular ah tan waa first person plural okay dad badan oo iska hadlay macnaha dad kale u sheegayaan
yourself. Number two, you have to solve this problem yourself. waa inaad dhibkan idinka xalisiin naftiina. ardadaada aad la hadlaysaa, xisaab baa siisay layli ama excess nimbus u yaqaan maxaa tiri, you have to solve this problem for yourself. waa inaad idinka samaysaan macnaha aad xalisaan dhibkan. Okay, is used for the second person. waxaa loo isticmaalaa second person plural marka laga hadlayo jamca, or as a polite form, like iyo marmarka qaar si idibnimo marka u hadlaysid for the second person singular, oo qof kale aad la hadlaysid si oo macnaha taxadur oo macnaha waalidnimo ku jirto oo singular ayadana. Themselves, the kind made the kid made the sandwich themselves. ciyaalka ayaa samaystay buskudkan la yidhaahdo sandwiches themselves ayaa samaystay. Use for the third person plural waana jamac oo waxaa laga hadlayaa dad badan oo jamac ayaa laga hadlayaa. marka opposite ay isku yihiin haddaad fiirsid singularga iyo pluralkeeda mid kasta wuxuu qabaa first, second, third person. hagaag halkan maxaa ku jira marka how to use reflexive pronoun. kani waa sida loo isticmaalo reflexive pronoun. marka cashirkan sida loo isticmaalo waxaa isticmaala marka la isticmaalayo actionka waa doon sidaan kasoo hadlayna, qofka ficilka markuu isaga sameynayo. sheekad herself waalidku in ilaas jirta markay wax karinaysa, iyo markuu subjectku yahay to emphasize the subject who performed the action. He built the house himself. asaga ayaa guriga isu dhisay. sidoo kale waxaa la isticmaalaa when using by. She attended the conference by herself. Okay, ma dhihi kartid I saw myself in the store. waxaaba sax ah John saw me myself at the store. waa qalad. maxaa dhihi John saw me, ma dhihi kartid myself, maxaa dhihi marka saw me at the store. exercise-kan hoos ku qoran intaydan su-aalaha si fiican u fiirinin, bal qofkii inta sax ah qof walba hal fiiriyo. 4 ayaa sax ah, halkan 5 number 5 kana waa qalad. 4 ayaa sax ah, number 5 tana waa qalad. hagaag marka cashirkan soosan u qoran waxaan soo gelinaa telegramka. qofkii rabo linka hoos ayuu ka fiirinaa. linka haddaad meesha hoos aad garanay description-ka waxaan soo saaraa the first comment. aad ayaan in salaamaya. make sure you subscribe the channel and open the notification so that you get the first lesson. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.